dabeecadda shinnida yeelo. shinnida dabeecaddeedu waa nuuce geedka ma eegto, geedka meel kale kama fadhiisato, geedka meesha ugu qurux badan bay shinnidu ka dul fadhiisataa, ubax. caloosheedana wuxuu ilaahay ka soo saaraa malab la yidhi fiihi shifaaun linnaas. malabkana ayaa jecel, dadkoo dhan baa jecel. maxaa shinnida maxaa malab looga soo saaray jidhkeyga ma taqaanaa? laanna geedka meesha ugu qurux badan bay ka fadhiisataa iyadu. markaasaa ilaahay caloosheeda wuxuu ka soo saaray casal la yidhi fiihi shifaaun linnaas. maaha dawaa, bal waa shifaa. dawaaga iyo shifaaga farqi baa u dhaxeeya. daawada marna ilaahay caafimaadka uu soo dhex marin karaa, marna ilaahay caafimaadka ma soo dhex marin karo. laakiin laba shay waa shifaa baa la yidhi, qur-aankaa sheegay. malabkuna waa shifaa, qur'aankuna waa shifaa. labadaa meesha bugta ee lagu eegaa xanuunka maba reebaan ween, waxba kama tagaan. allah ina siiya kalsoonida qur-aanka iyo malabka. shinnidu geedka inta fiican bay ka eegtay, meesha ugu qurux badnaydna way ka fadhiisatay. waxaa ilaahay ka soo saarayna malab la yidhi waa dawo. haddaad adiguna dadka qabaa'ilka iyo dadka inna way fiican yihiin, inna way xun yihiin, inta xun ha eegine, inteed eegaysaa? inta fiican baa laga qaataa. hadal baad maqashay, intiisa fiican baa laga qaataa. hadalka adiga kaa soo baxaya qiyaas, hadal ummadda isku keenaya ha kaa soo baxo. waxaad noqonaysaa haddaad dadka inta fiican aad ka raacdo oo inta fiican aad ka eegto, waxaa ilaahay ku soo dhex marin doonaa talo ama hadal ummadda isku keena baa ilaahay ku soo dhex marin. wa ilaa haddaad qabiil walba intooda xurun aad ka eegto oo inta fiican aad ka eegi weydo, waxaad noqonaysaa dabeecadda waxaad yeelataa doofaarka. deedna waxaad noqonaysaa bakteriyaad noqonaysaa. meeshaad fadhiisataba jeermis baad ku reebaysaa markaas.